بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى saan soo tilmaannay kitaabka qur-aanka waxa uu noogu bayaaniyey ama wax badan lagu soo celceliyey qisooyinkii dadkii hore iyo ambiyaalka gobol ka mid ah. qisooyinkaasaan soo tilmaannay waxaa ku jira cibro qaadasho iyo inay dadku ogaadeen diinta sida ay tahay, dhibka loo soo maray iyo sida loogu talagalay in loogu sabro oo loogu adkaysto, mar walbana ciribta wanaagsan inay u sugnaanaysa dadka ilaahay diintiisa raacay. haddaba maanta waxaan ka hadli doonnaa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam. nebi ibraahim ilaahay aad ayuu kitaabka ugu ammaanay subxaana wa tacaala. ilaahay wuxuu yidhi: wadkur fi lkitaabi ibraahim. kitaabka dhexdiisa waxaad ku xustaa rasuulkii allow ood ummadda uga sheekaysaa qisadii ibraahim. nebi ibraahim sheekadiisa u sheeg, waayo innahu kaana sidiiqan nebiya. nebi ibraahim waa sidiiq run badana ah, run sheeg badan ayuu ahaa, haddana nebi ah. sidaa darteed qisadiisa waxaa ku jirta cibro aad iyo aad u cajaa'ib badan oo loogu talagalay qof walba oo cabsanaya inuu ku cibro qaato. sida ilaahay ba yidhi: inna fii daalika la cibratan liman yakhshaa. arrintan waxaa ku sugan cibro qaadasho iyo xusuusasho lagu xusuusta dadka ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala. haddaba nebi ibraahim waxa uu ka dhashay qoys mushrikiin ah, ama aabbihiis ayaa wuxuu ahaan jirayba dadka ama mid asnaamta gacantiisa markaa ku sameeya, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. nebi ibraahim asagoo yar ayaa hanuunkiisa la siiyey, sida ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala: walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wa kunnaa bihi caalimiin. nebi ibraahim waan siinay rushdigiisii, hanuunkiisa horay ayaan u siinay buu dhahay ilaahay. rabbi wuxuu garansiiyey waxdaaniyadiisa, waxaa lagu arsuqay iimaan, waxaa lagu arsuqay towxiid. sidaa darteed ayaa waxaa lagu magacaabaa inuu yahay aabbihii towxiidka. nebi ibraahim ilaahay ayaa saaxiib ka samaystay: waatakhada allaha ibraahiima khaliila. ilaahay nebi ibraahim khaliil iyo waday ayuu ka dhigtay subxaana wa tacaala. haddaba qisadiisa markaan dhex galno ayaan ogaan doonnaa sida uu u dadaalay, uu diinta ugu halgamay, iyo dhibaatadii uu la soo maray, iyo markii dambe sida ilaahay u abaalmariyey subxaana wa tacaala. haddaba nebi ibraahim asagoo yar ayuu ilaahay hanuunkii siiyey subxaana wa tacaala. qoonkiisa iyo aabbihii ayuu waaniyey, weliba wuxuu wax ka tusay oo ay ahaayeen dad xidigaha iyo bisha iyo qoraxda waxyaabaha noocaasa caabuda. aabbihiis aazara gacantiisa ayuu ku samayn jiray asnaamta, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. nebi ibraahim wuxuu bilaabay islamarkii inuu towxiidka ka waaniyo oo dadka ilaahay uu ku xiro subxaana wa tacaala. kama sariigan, kamana xishoonin aabbihii, ilaan xaqa qof looga sariigtaa ma jiro. aabbihiis ayuu la hadlay oo diinta uu u sheegay iyo sida towxiidka markaa uu yahay. ilaahay wuxuu yidhi: waid qaala ibraahiimu liabiihi aazara. waxaad xustaa rasuulkii allow ood ummadda u sheegtaa wakhti nebi ibraahim uu ku yidhi aabbihiis aazara ahaa: atattakhidu asnaaman aaliha. asnaamta miyaad ilaahya ka dhiganaysaa aabbow? innii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin. ani waxaan idiin arkaa adi iyo qoomkaba inaad ku jirtaan baadi mubiin ah. adi iyo tolkaygaba inaad baadi mubiin ah ku jirtaan ayaan aabbow idiin arkaa ayuu yidhi. maxaa dhacay ood asnaamta ilaahya uga dhiganaysaa? maxaa dhacay ood ilaahay u caabudi weysay subxaana wa tacaala? maxaa dhacay ood asnaamta uga dhigatay wax waxtaraaya ama wax anfacaaya? innii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin. ani adig iyo qoomkaba waxaan idiin arkaa inaad baadi mubiin ah ku jirtaan. wuxuu rabay inuu caqligooda wax tusaaleeyo. ilaahayna wuxuu tusiyey malakuutka samaawaadkii arlada: wakadaalika nuri ibraahiima malakuuta asamaawaati waalard. sidaa ayaan ibraahim u tusinay ayuu dhahay ilaahay, samaawaadka iyo arlada malakuudkooda, waliyakuuna min almuuqiniin. si uu ibraahim u ahaado dadka yaqiinsan oo waxdaaniyada alleh iyo awoodda alle u daliilsada waxyaabaha rabbi uu abuuray,
sidaa darteed ayaa wax badan oo makhluuqaadka ka mid ah aabbihiis iyo qoonkiisaba waxay ka dhiganayeen ilaahyaalo. fiiri nebi ibraahim sida uu wax u tusiyey, falammaa janna calayhi alleylu, mar allaala markii dushiisa habeenkii uu ku soo daboolmay oo mugdigii habeenka la gaaray, ra'aa kawkaban, nebi ibraahim xidig ayuu arkay. waa xidigii ay caabudi jireen ayaa soo baxay. qaala haadaa rabbii, markaa ka gadaal ayuu ibraahim yidhi, midkaan rabbigay waaye, midkaan xidigaad aad u jeedaan waa rabbigay. falammaa afala, mar allaala markuu dhacay oo xidigii la waayey, qaala laa uxibu alaafiliin, ibraahim wuxuu yidhi aniga ma jecli ilaahyaha dhaca, aafiliinta aniga ma jecli. bacdamaa midkaan uu dhacay ilaah iima noqonayo. wuxuu rabay inuu caqligooda wax tusiyo, wuxuu rabay waxa ay ku socdaan inuu baatil yahay inuu dareensiiyo. mar allaala markii mugdiga habeenkii la gaaray ee uu arkay xidiga, wuxuu yidhi kan ayaa rabbigay ah. mar allaala markuu dhacayna maya ayuu yidhi kan rabbi iima noqdo, innii laa uxibu alaafiliin, aniga ilaahyaalka dhaca ma jecli ayuu yidhi. cabbaar ayaa la sugay. falammaa ra'a alqamara baasiqaa, intaa ka gadaal mar allaala markuu arkay dayaxii oo soo muuqda, haddana qaala haadaa rabbii, kan ayaa rabbigay ah ayuu yidhi ibraahim. falammaa afala, dayaxii markuu dhacayna ibraahim wuxuu yidhi, lain lam yahdinii rabbii la akuunanna min alqawmi addaaliin, hadduusan rabbigay i hanuuninin oo waxdaaniyadiisa iyo tawxiidkiisa iyo iimaan qalbigayga uusan ku sugin, anigu qoomka daaliinta ah ee dhuma oo xaqa ka leexda oo tawxiidka aan qirin ayaan ka mid noqonaa. rabbigay inuu isugo uu i hanuuniya maahane. waa mar allaala markuu tusiyey qamarkii haddana inuusan ilaah u noqonaynin. intaa ugama harin. falammaa ra'a ashamsa baasiqatan qaala haadaa rabbii haadaa akbar, mar allaala markii haddana shamsadii ama qoraxdii ay soo baxday ee uu arkay ayadoo muuqatay, wuxuu yidhi midkaan ayaa rabbigay ah, ayadaana weyn oo qamarkii iyo kowkabkii labadaba markaa ka weyn. wuxuu rabaa weli qalbigooda iyo maskaxdooda inuu wax tusiyo. falammaa afalat, markay ayaduna dhacday, qaala yaa qawmi, wuxuu yidhi tolkayay i dhegaysta, innii barii'un mimaa tushrikuun, aniga beri ayaan ka ahay wax allaala waxa aad ilaah ugu shariig yeelaysaan, waxaad ilaahay wax kula xiriirinaysaan ood waxdaaniyadiisa aad kula lifaaqdeen, aniga beri ayaan ka ahay ayuu dhahay. qoomkayow i dhegaysta, war qoomkeeyow imaqla, aniga beri ayaan ka ahay. tolka sidaa ayaa loogu talagalay in loogu sheego. hadday diinta alla qiri waayaan, xaqa ay ku socon waayaan oo tawxiidka ay ka leexdaan, ibraahim fiiri muxuu yidhi, yaa qawmi innii barii'un mimaa tushrikuun, aniga beri ayaan ka ahay wax allaala waxaad ilaah ugu shariig yeelaysaan. sidaa darteed ayuu ilaah subxaana wa tacaala wuxuuna amray baatilka iyo xumaanta iyo shirkiyaalka ay ku dhex jiraan tolalka inaan la dhex gelin oo bannaanka lagala baxo oo faraha lagala baxo oo aan lala samaynin baatilkooda. ilaah subxaana wa tacaala markuu nebigiisa la hadlayay wuxuu yidhi, wa andir cashiirataka alaqrabiin, waxaad u digtaa qaraabadaada kuwa ugu dhow xaqa u sheeg, diinta gaarsii. sidaa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wakhfid janaaxaka, dhinacaagana u raarici liman ittabacaka min almu'miniin, in allaala intii ku raacda oo iimaan leh oo rabbigood rumaysay, adiga dhinacaaga u raarici, isu dulleey, agtooda fadhi, marka horena tolkaaga xaqa u sheeg. fa in casawka, hadday ku caasiyaan oo ay diidaan amarkaaga iyo diinta aad wadato iyo xaqa iyo tawxiidka, hadhihin tolkaaga iyo kabtaada waa lagu dhex jiraa, ee faqul innii barii'un mimaa tacmaluun, waxaad ku dhahdaa aniga beri ayaan idinka ahay wax allaala waxa aad samaynaysaan. baadilka iyo xumaanta aad ku jirtaan ani ma samaynaayi, aniga wax aan ku soconaya ma aha. sidaa dhah ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waad u jeedaa nebi ibraahim wuxuu yidhi qoomkeeyow
anigu beri ayaan ka ahay wax allaala waxa aad ilaah ugu shariig yeelaysaan. xaaladdaa waxay tilmaamaysaa nebi ibraahim calayhi salaam inuu khayr iyo wanaag ummaddiisa la rabo, inuu xaqa iyo diinta gaarsiinayo, uu rabo inuu tawxiidka ka dhaadhiciyo, xaqa iyo diinta uu u sheego, shirkiga iyo gaalnimadana ay ka tagaan. qoonkiisa iyo aabbihii labadaba waa wacdiyey, waana waaniyey, xaqa iyo diinka ayuuna markaa u sheegay. ilaahay maruu ka hadlayay asagoo aabbihiis waaninaya wuxuu yidhi, wadkur fi lkitaabi ibraahiima, kitaabka waxaad ku dhex xustaa nebi ibraahim, innahu kaana sidiiqan nebiya. ila nebi ibraahim wuxuu ahaa sidiiq run badana ah, run sheegid badan ayuu ahaa, haddana nebi ayuu ahaa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. haddaba ammaantaa muxuu ku gaaray fiiri, id qaala liabiihi, wakhti aabbihiis uu ku yidhi, yaa abati lima tacbudu, aabbow maxaad u caabudaysaa wax aan wax maqlaynin oon wax arkaynin, walaa yugnii canka shay-aa, waxnana aan kuu tari karin. aabbow maxaad u caabudaysaa dhagax iyo qori la qoray, shirki iyo gaalnimo maxaad ugu dhex sugan tahay aabbow? dad khubuur ku jira oo aan wax maqlayn wax arkayn maxaad u caabudaysaan? wax rabbi ka soo haray ama jamaadaad ah ama xayawaano ah ama makhluuq rabbi khalqay ah maxaad u caabudaysaan? id qaala liabiihi, wakhti aabbihiis uu ku yidhi, yaa abati aabbow, lima tacbudu maa laa yasmacu, waxaan wax maqlaynin oon wax arkaynin waxna aan kuu anfacayn, aabbow maxaad u caabudaysaa? wuxuu ka gudanaa risaalada, wuxuu rabaa inuu xaqa aabbihiis ka dhaadhiciyo. hadal fiican oo macaan ayuu kula hadlaa nebi ibraahim, aabbihiis cayn maayo, wax kala gaarsiin maayo. wuxuu rabaa inuu si tartiiba oo deganaana diinta uu ugu sheego. asoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi, yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi, aabbow aniga cilmiga xaggiisa waxaa iiga yimid waxaan adi kuu imaanin, ee faattabicnii, isoo raac, ahdika siraatan sawiya, aan kugu hanuuniyo jidka toosane. aabbow cilmi aan kuu imaanin ani ii yimid, aabbow ani ilaahay ayaa xaqa i waafajiyey, adiga mushriknimo iyo gaalo ayaad ku sugan tahay. aabbow waxaa xagga alla iiga yimid cilmi aan adi kuu imaanin, isoo raac, aan kugu hanuuniyo jidka toosane. hadalka macaantiisa fiiri, sida aadaabtii usluubta leh uu aabbihiis ula hadlaya fiiri, isagoo qayle iyo canaan iyo waxyaabo kale aan ku darin, hadalkiisana sii wata wuxuu yidhi, yaa abati laa tacbud ashaytaan, aabbow shaytaan ha caabudin, aabbow shaytaan warkiisa ha yeelin, waayo ina ashaytaana kaana lilraxmaani casiya, shaydaanka allaha raxmaanka ah ee naxariista badan ayuu ku caasiyey oo amarkiisa diidaye. aabbow shaydaan ha caabudin, waayo haddaad alle u shariig yeesho adoo shaydaan caabuday la mid tahay. haddaad rabbi waxdaaniyadiisa wax kale lala xiriiriso waxay la mid tahay adigoo shaydaan caabudaye. aabbow shaydaan ha caabudin, waayo shaydaanka allaha raxmaanka ayuu ku caasiyeye. hadalkiisa asoo sii wata wuxuu yidhi, yaa abati innii akhaafu an yamassaka cadaabun min alraxmaan, aabbow ani waxaa ka cabsanaa allaha raxmaankaa xaggiisa inuu cadaab kaa taabto, oo fatakuuna lishaytaani weliya, shaydaanka aad weli u noqoto, shaydaanka mid walaal ah aad la noqoto. taasaan ka cabsanaa aabbow, intay arrintaa dhicin ani isoo raac, intay arrintaa dhicin xaqa raac, intay arrintaa dhicin oo shaydaanka aadan weli la noqonin, allaha raxmaanka agtiisana cadaab kaa taabanin. allow aabbow ka har waxyaabahan aad ku socoto, shirkigan iyo gaalnimadan, ee waxaad fulisaa tawxiidka, rabbigaana aamin. intaa ayuu waaniyey ibraahim, xaqa ayuu u sheegay aabbihii, laakiin nasiib wanaag odaygii aabbihii ahaa ma qaadanin, mana fulinin waxyaabihii wiilkiisa uu ku waaniyey, balse wuxuu yidhi, hadda maad la timid inaad ilaahyaalkeenna wax ka sheegto ood nacdo yaa ibraahim, lain lam tantahi, haddaadan ka harin wax sheegidda iyo ilaahyaalkeena aad wax ka sheegayso, la arjumannaka, waan ku rajmin, dhagaxan kugu dila, wahjurnii maliyan, zamanna iga haajir ayuu yidhi, iga wada tag adigoo dhan, kuma arki karo. sidaa ayuu ku yidhi. taa waxaan tilmaam u ah ama tusaale u ah qofka mar allaala marka uu la yimaado kelimada tawxiidka, in dad fara badan oo tawxiidka aan ogoleen ay ka hor imaanayaan. waayo rasuulka markii lagu soo dejiyey iqra'
ee uu soo orday oo Khadiijana ay waday u geysay Waraqa ibn Nawfal wuxuu yiri ras waxaa tahay ama ninka ku yimid waa naamuus ama waa khayr wadihi waa kii Ilaahay Nabi Muuse uu ku soo dejiyay ee shalaytadaydii iyo halaagaygiyo nin nool ma noqdo waqtiga ay qoomkaaga ku bixin doonaan nabiga aad ayuu ula yaabay wuxuu yiri awa mukhrijihum kuwan ma ibixinaya dad maanta ijecel محمد أمين إدهايا محمد كي صادق أها إيغو مقع داري آد إيجعل دد نوعاس أهما إبورينايا ورقا وحوير لما إيمان وحي آد لطمت قفلي مد مجرو إلا والا لعلي تمي والا نعي لا إله إلا الله بها ددك والا نعا ور إلهي كلغي استرع وكلغي أمر كقاطع ووحدانية أبوينيالا توحيد يالك سدح لا أساق أبوينيالا سيدا هدي لطها ددبا أياك حماضة وددك كهر يماذا haddaba lama imaanin wixii aad la timid axad la yimid ma jiro ilaa waa lala colaytamay laakiin haddii aan soo gaaro maalintaas oo qoomkaagu ay ku bixin doonaan waan kuu gargaari doonaa gargaar xoog leh ayuu yidhi waraqa ee halaagaygiyow maalintaa maa noqda jadac iyo canug yar oo markaa ilka jabsaday ama markaa soo baxay waa kuu gargaari doonaaye laakiin nasiib wanaag ma daahin ee isla markii waa dhintay Waraqa sidaa darteed aabbihii wuxuu ugu jawaabay hadda maad la timid inaad ilaahayaalkeena cayso ama aad nacdo ood wax ka sheegto haddaadan ka harin arrintan aad ku socoto dhagax ayaan kugu dilaa ayuu yidhi odaygii gurigana markaa iiga bax intaa ka gadaal Ibraahim wuxuu yidhi salaamun calayka aabbow nabadgelyo korkaaga ha ahaato waa tii kala tegidda sa astakfiru laka rabbigay ayaan kuu dembi dhaaf weydiin doonaa innahu kaana bii xafiya ilaahay waa alla i ilaalinaya oo i dhowraya subxaana wa tacaala dembi dhaaf ayaan kuu weydiin doonaa waana ka fogaaday oo waa ka dhaqaaqay wixii markaa ay ku jireen Ibraahim oo aabbihiis iyo qoomkiisaba Ibraahim markaa waa ka durqay haddaba arrimooyinkaasoo dhan waxay noo tilmaamayaan inuu nebi Ibraahim aad u dadaalayo ilaa iyo hadda uu dadkiisa dhex maraayo oo xaqa iyo diinta u sheegayo waxay ahaayeen dad asnaamta caabuda waxay ahaayeen dad asnaamta maalin u sameeya oo ciid ah oo damaashaad iyo waxyaabo kale ku dhex sameeya ayay ahaayeen sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala rabbi asagoo noo tilmaamaya arrintaa wuxuu yidhi iyo sida Ibraahim uu sameeyey wa inna min shiicatihi la Ibraahim nebi nuux waxaa ka mid ahaa oo diintiisa raacay oo qaybtiisa iyo firqadiisa ku jiray Ibraahim id jaa'a rabbahu biqalbin saliim waqti rabbigiis uu ula yimid qalbi saliim ah qalbiga saliimka waa qalbiga nabadgalay oo shirki iyo gaalnimo xaasidnimo iyo nifaaqnimo kulli ka nabadgalay qalbi noocaasa ayuu rabbi ula yimid nebi Ibraahim id qaala liabiihi wa qowmihi aabihiis iyo qoomkiisa ayuu ku yidhi maadaa tacbuduun maxaad caabudaysaan aabbahay iyo qoomkeeyaw waxa aad caabudaysaan maxay yihiin been abuurasho ilaahya ka soo haray oo alla sukadiisa ah miyaad caabudaysaan maxaad u malaynaysaan ayuu yidhi birabbialcaalamiin caalamiinta rabbigooda caalamkan oo dhan rabbiga barbaariya war in asnaam lala caabudi kara may idinla tahay in diintiisa laga taga maad asnaam kale la caabudaysaan ayaguna raashin ayay u sii wadeen ayaa la yidhi asnaamtay hor dhigayaan mar allaala markay meesha dhigaan waxay dhihi jireen barako ayaa ku soo degaysa markaa ka gadaal ayay isticmaali jireen amase waxyaabo kale ay ku samayn jireen Ibraahim canug yar waaye waa iska sii raacay wixii ay samaynayeen cabbaar markuu la socday fa nadara nadratan fi nujuum intaa ka gadaal ayuu xidigaha fiiriyey nujuumtii xidigaha ayuu fiiriyey faqaala innii saqiimun aniga mid xanuunsan ayaan ahay ayuu yidhi ama waan xanuunsan doonaa waxaa dhici karta inuu ula jeedo waxaan iyo ficilkan iyo arrimooyinkan aad samaynaysaan kuma caafimaad qabi mid ka xanuunsan oo ka buka oo aan raalli ka ahayn ayaan ahay faqaala innii saqiimun mar allaala markay sidaa uu yidhi way ka jeesteen xaggiisa wayna ka dibjeediyeen mar allaala markay raashinkii u dhigeen ayagana ay ka tageen faraaqa ilaa aalihatihim ilaahyaalkooda ayuu u dusay oo meeshii ay ku jireen ayuu aaday faqaala alaa ta'kuluun wuxuu ku yidhi maad cuntaan
cuni maysaan miyaa raashinkan? wuxuu la hadlayaa asnaamtii. maa lakum laa tandiquun, maxaa dhacood iila hadli la'dihiin? intaa wuxuu ula jeedaa cajsigooda iyo waxtar la'aantooda iyo faa'iida daradooda ayuu rabaa inuu muujiyo, iyo dadkii ilaahya ka dhigtay oo ayaga asnaamtaa dhagxaanta ah sugaaya oo gargaar iyo barako iyo nimco ka sugaaya ayuu rabaa inuu tusiyo inay waxba markaa ahayn. faqaala alaa ta'kuluun, cuni maysaan miyaa ayuu yidhi. maa lakum laa tantiquun, maxaa dhacood iila hadli la'dihiin? markuu sidaa yidhi faraaqa calayhim darban bilyamiin, isla markii wuxuu ku bilaabay inuu garaacayo dushooda oo midigta iyo xoog uu u tumaayo. isla markii meesha ayay yimideen oo way soo qaabileen, ayagoo soo degdegaya ayay meesha markaa yimaadeen. ilaahay subxaana wa tacaala qisada wuxuu noogu tilmaamayaa ibraahim dadaalka uu ku jiro. dadkii oo dhan asnaam bay caabudayaan, dadkii oo dhan shirki iyo waxyaabo kale ayay ku jiraan. aabbihiis ayaa ugu weyn, keligiis ayaa tawxiidka ka qirsan oo raacsan. wuxuu rabaa inuu aad ugula dadaalo uu shirkiga iyo gaalnimada ka reebo, nuurka hidaayada iyo waxdaaniyada alla inuu ku soo dabaalo ku soo xiro. arrintaa ayuu ku dadaalaa ibraahim calayhi assalaam. sidaa darteed ayaa meel walba ay galaan iyo wax allaala wixii ay sameeyaan ayuu ka daba socdaa. wuxuu tusaalaynaa waxa ay caabudayaan inaysan faa'iida lahayn. ilaahay fiiri maruu ka sheekaynayay ibraahim wuxuu yidhi walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu, ibraahim waxaan siinay hanuunkiisa min qabl, horay ayaan u siinay, asagoo yar ayaan siinaa. dhici karta in loola jeedo wa kunnaa bihi caalimiin, annagana kuwa ku cilmi leh ayaan ahayn ibraahim, kuwa yaqaana inuu u qalmo oo u cuntamo ayaan ahayn. id qaala liabiihi wa qowmihi, waqti aabbihiis iyo qoomkiisa uu ku yidhi maa haadihi tamaahiilu, war musawiradan iyo asnaamtan maxay yihiin? allatii antum lahaa caakifuun, kuwaasoo idinka aad ku nagtihiin oo habeen iyo maalin aad ag fadhisaan oo gargaarka iyo qawdka iyo waxdalabka aad ka rajaynaysaan. war wax walba oo alla ka soo haray oo la caabudo ayaa tamaahiil ah, xataa qubuuraha ha ahaadaano. qabrigeyga ha ka dhigina wasnan yucbad ayuu dhahay nebiga, sanam la caabudo. maca daalika qabriga haddii la caabudo la ictikaafo oo la ag fadhiistaa wuxuu noqonayaa wasan iyo sanam markaa la caabuday. sidaa darteed ayuu asaga aabbihii iyo qoomkiisaba uu ku yidhi maa haadihi tamaahiilu, war musawiradan iyo asnaamtan maxay yihiin oo aad ku nagtihiin? maxay dhaheen wajadnaa aabaa'anaa lahaa caabidiin, annagu aabbayaalkeen ayaan ka helnay oo caabudaya. wax kale oo daliilo ay u haystaan ma jiro. hiddo iyo dhaqan ayaan u lahayn, abiya isir ayaan ka soo gaarnay. waa sida dadka badankoodu ay isticmaalaan maanta. waxyaaba lagu dhaqmi jiray haddaad ka celiso ood dhahda waxaan maxay yihiin ee iska dhaaf, waxay ku leeyihiin waxaan ka soo helnay aabbayaalkeen, fac ka fac ayaan ka soo guurinay. hadda maad rabtaa wixii awoowayaal iyo abayaal laga soo dhaxlay in hadda aad baabi'iso? arrintaa wax suuragelayaa ma aha. qaaluu wajadnaa aabaa'anaa lahaa caabidiin, aabbayaalkeen ayagoo caabudaya ayaan ka helnay dhaheen. ibraahim wuxuu yidhi idinka iyo aabbayaalkiinaba baadi mubiina ayaad ku jirtaan. idinka iyo aabbayaalkiina waxa aad haysataan iyo waxay aabbayaalkiin ku dheganaan jireen waa shay dalaal ah oo baadi ah, weliba baadi mubiin ah oo cad waaye. war ka soo hara oo waxaan iska dhaafa. waxay yidhaahdeen aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin, ma xaqaad noola timid mase waa nagu dheedheelaysaa ibraahiimow? war hadalkaaga hadal fiicanna waa u eg yahay. annagana manihi dad aabbayaalkood waxay ka soo gaareen oo hiddaha iyo dhaqanka ka tegaaye. waxa aad noola timid ma dhabaa shay xaq ah miya am anta min allaacibiin, mase waa ciyaaraysaa oo kuwa nagu dheedheelaaya ayaad markaa ka mid tahay? nebi ibraahim wuxuu yidhi bal iska daa inaan dheedheelee, rabbukum rabu asamaawaati waalardi, rabbigiin la raba inaad rabbi ka dhigataan ood keligiis caabudaan, ood keligiis tuugtaan, ood keligiis u nadartaan. waa samaawaadkii arlada rabbigooda, alladii fatarahunna, kaasoo ammaamuday. wa ana calaa daalikum min ashaahidiin, anigana arrintaa iyo kiina waxaan ahay kuwa shaahidiinta ah. shaahid oo shaahidiinta ka mida ayaan ka mid ahay ayuu yidhi. waxaan qirayaa ilaahay keligii subxaana wa tacaala. asnaam badan ayay lahaayeen oo ay caabudi jireen.
guryo ayay u sameeyeen saan soo tilmaanay ay raashinkii waxyaabaha ugu geeyaan. nebi ibraahim wuxuu dhahay watallaahi la akiidanna, alla ayaan ku dhaartee asnaamtiina iyo waxyaabaha aad caabudaysaan alla kayrkii ayaan ku dhagarfali doonaa oon jejebin doonaa mar allaala marka aad dib jeedisaan ka gadaal. mar allaala markaad meesha ka tagtaan asnaamta iyo dhammaan waa jejebin doonaa. mar allaala markuu sidaa dhahayay ayagu badankooda ma maqlaynin. qolo yar ayaa dhici karta inay maqlayeen sida hadhow aan arki doonno, ayaga laakiin way ka tageen meeshay ku dhaafeen ibraahim. waa u soo galay inta uu fees u soo qaatay ayuu jejebiyey fajacalahum judaadan, wuxuu ka dhigay go'go iyo burbur iyo jajab ilaa kabiiran lahum, sanadkii u weynaa oo ayagu ay lahaayeen maahane lacallahum ilayhi yarjicuun, waxay mudan yihiin inay u soo laabtaan ayuu yidhi ibraahim. meeshii ay ku jireen ilaahyaalkii la caabudaayey oo nasriga iyo gargaarka laga rabay ayuu u soo galay. feeskiisuu u soo qaatay waa jejebiyey dhammaantood. maca daalika wuxuu dhaafay kii weynaa. waxaa dhici karta ayuu yidhi inay gadaal ugu soo laabtaan. weliba taariikhda gobol ka mida waxay tilmaamaysaa kii weynaa ayuu seefta ama wixii uu ku jejebinayay garabka u suray. mar allaala markay soo noqdeen ayay arkeen ilaahyaalkoodii oo la jejebiyey, ilaahyaalkoodii oo la baabi'iyey. qaaluu man facala haadaa biaalihatinaa, ilaahyaalkeenna yaa saa yeelay dhaheen innahu la min aldaalimiin. waxaa caqli xumo iyo foolxumo ah ilaahyo ay ayaga ilaalinayaan oon waxba iska celin karin naf ahaantooda, oo ayaga daciif ahoo tabar daran inay ayaga gargaar iyo guul ka sugaan, inay nasri iyo waxyaabo kale ka sugaan waa shay aad iyo aad u foolxumo ah. shay aad iyo aad u foolxumo ah ayay tahay. maca daalika arrintaa waxaa loogu talagalay inay ogaadaan in waxaan ay yihiin shay daciif ah oo faa'iido aan lahayn, oo ilaahay keligiis ay raacaan subxaana wa tacaala. hadalkooda fiiri, man facala haadaa biaalihatinaa, ilaahyaalkeenna yaa saa yeelay innahu la min aldaalimiin, asaga daalimiinta ayuu ka mid yahay. sidaa ayay markaa dhaheen. dhalinyaro ama dad meesha joogaa waxay dhaheen waxaan maqalnay wiil yar oo shaaba oo xusaaya oo dhahaya anaa jejebin doona. wiilkaana waxaa la yidhaahdaa ibraahim, yuqaalu lahu ibraahiimu. anug ibraahim la dhaho iyo fati iyo shaab ayaan maqalnay, kaasoo dhahaya anaa oo xusaaya oo asnaamta wax ka sheegaya ama jejebiskooda xusaaya. ninkaasoo markaa ibraahim la yidhaahdo. waxay dhaheen soo qabta ibraahim oo halla keeno calaa acyuni innaas, dadka indhahooda lacallahum yashhaduun. waxay mudan yihiin inay ku markhaati kacaan, inay ku marag furaan ayaa la arkaaye. soo qabta ibraahim laftigiisa ee keena dadka indhahooda iyo hortooda, intaasay yidhaahdaan midkaan waaye. waa la soo tegey ibraahim, waa loo tegey, waa la soo qabtay. waxay yidhaahdeen a anta facalta haadaa biaalihatinaa yaa ibraahiimu, ibraahiimow adimaa ilaahyaalkeenna saan yeelay. weliba ilaahyaal ayay ku sii magacaabayaan. qofku mar allaala marka uu tawxiidka ka tago oo rabbi subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa uu qiri waayo, wuxuu noqonayaa sida xoolaha oo kale, balse waa ka sii liitaa. ilaahii asaga uu ilaahnimada ku sheegaayo, ileen ilaah waxaa lagu yaqaanaa inuu wax dhibo, inuu wax anfaco, inuu aarsado, inuu waxyaabo fara badan dadka u taro. arrimooyinkaasa alla lagu yaqaanaa. waxay leeyihiin isagii ama ilaahyaalkoodii ayay u yihiin ciidan ayaga markaa waardiyeynaya. waxay dhaheen a anta facalta haadaa, adimaa ku falay arrintan ilaahyaalkeena ibraahiimow ilaahyaalkeena adimaa saas yeelay ayay dhaheen. ibraahim wuxuu yidhi bal facalahu kabiiruhum haadaa, ani ma ahee waxa sameeyey kan weyn oo midkaan ah ee fas'aluuhum in kaanuu yantiquun, weydiiyaba haddii ay hadlaayaan. bal su'aala xataa hadday wax iska celin waayeen, xataa hadday hadlaayaan oo ay dhihi karaan qofkaasaa saana yeelay, bal su'aala ayuu yidhi ibraahim calayhi assalaam. weli si wanaagsan ayuu u tusaalaynaa xaqa, weli si wanaagsan ayuu rabaa inuu u tusiyo. qaala bal facalahu kabiiruhum, kabiirkooda iyo kooda weyn ee midkaan ah ayaa sameeyey ayuu yidhi ee fas'aluuhum, su'aalaba in kaanuu yantiquuna, hadday yihiin kuwa markaa waramaaya,
kuwa hadlaaya hadday yihiin ileen waxtar iyo wax nafci ah loogama jeedee bal xataa hadday nafafyaalkooda haba loo aaree ay sheegi karaan ay dhihi karaan hebel ayaa saana yeelay bal su'aalaba fas'aluuhum weydiiya in kaanuu yantiquun hadday yihiin kuwa markaa hadlaaya. intaa markuu ibraahim yidhi waxoogaa way garwaaqsadeen oo nafafyaalkooday ku noqdeen. farajacuu ilaa anfusihim nafafyaalkooda ayay ku laabteen. faqaaluu waxay yidhaahdeen innakum antum aldaalimuun, wallaahi idinka daalimiin ayaa tihiin. yaalo aan wax iska celin karin, war ilaahyaalo anaga habeen iyo maalin aan u taagannahay oo mar walba inaan anaga difaacna naga sugaaya, say xaaladdu ku dhici kartaa inaan wax weydiino. farajacuu ilaa anfusihim nafafyaalkooda ayay ku noqdeen. faqaaluu innakum antum aldaalimuun, markaasay yidhaahdeen wallaahi idinka daalimiin ayaa tihiin. waa dadaan ilaahay khayr la doonina. humma nukisuu calaa ru'uusihim madaxyaalkooda ayay u foorareen oo gadaal ayay u laabteen. waxay dhaheen laqad calimta maa haa'ulaa'i yantiquun, ibraahiimow waad og tahay kuwan inaysan hadlaynin, maxaad noo dhahaysaa la hadla hadday waramayaan? hadday yihiin kuwa hadlaaya weydiiya, sababta aad noo tiri ibraahiimow maxay tahay adigoo og kuwan inaysan hadlaynin? nebi ibraahim wuxuu yidhi afatacbuduuna min duuni illaah, waayahee alla sukadiisa ma waxaad caabudaysaan maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum, waxaan wax idin anfici karin aanana idin dhibi karin. walimaa tacbuduuna min duuni illaah, qurun ayaa idin sugnaaday idinka iyo waxa aad caabudaysaan alla sukadiisaba. afalaa tacqiluuna, kuwa caqli qaadanaya ma ihidiin miyaa? war kuwa ilaahay diintiisa fahmaaya ma tihiin miyaa? waayahee haddaad og tihiin kuwan inaysan hadlayn, wax taraynin, wax anfacayn, wax iska celin karin, ma waxaad caabudaysaan alla sukadiisa waxaan nafci iyo daar labadaba lahayn? afatacbuduuna min duuni illaahi, ilaahay sukadiisa maa miyaad caabudaysaan laa yanfacukum shay-an, shay aan idin anfacayn, walaa yadurukum, aanana markaa idin dhibaynin. qurun iyo uf ayaa idin sugnaatay adinka iyo wax allaala waxa aad caabudaysaan alla sukadiisee. afalaa tacqiluuna, caqli qaadan maysaan miyaa? ayuu dhahay ibraahim calayhi salaam. intaa xaqa ayuu gaarsiinayaa oo tawxiidka ayuu ka dhaadhicinaa. wuxuu rabaa inuu ilaahay ku xiro subxaana wa tacaala. ayagu way diidan yihiin. ibraahim dadaal fara badan ayuu ku jiraa inuu muwaxidiin ka dhigo. ayagu dadaal fara badan ayay ku jiraan inay shirkigoodii gaalnimadooda daa'imeen. sidaa darteed ayuu ibraahim yidhi qurun ayaa idin sugnaaday idinka iyo waxa aad caabudaysaan alla sukadiisa, kuwa caqli qaadanaya ma tihiin miyaa? intaa waxay ku ogaadeen waxa arrintaa haleeyey asnaamta jajabiyey inuu ibraahim yahay. markaasay go'aan gaareen, waxaana la go'aansaday oo lagu tashaday in ibraahim la gubo. qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliina, waxay yidhaahdeen guba ibraahim, ilaahyaalkiina taageera oo garab siiya oo u gargaara haddaad kuwa wax samaynaya tihiin. war ibraahim ha looga aaro, xariquuhu guba ayay dhaheen oo ilaahyaalkiina taageera, ilaahyaalkiina u hiiliya, sidaa ayay yidhaahdeen. min wakhtigii hore ka mid ahaa ama wakhtigii rasuulka magaalada madiine joogay oo shirki iyo gaalnimo ku jiray ayaa jiri jiray. sanam ayuu lahaa, weliba sanamkiisa waxa uu ka sameeyey ayaa la yidhi looxa iyo alwaaxa ugu qaalisan ayuu ka samaystay. maca daalika subax kastaa waa barakaysan jiray. sanadkiisa ayuu aadaa, markuu shaqada aadaya waa u tagaa, markuu ka soo noqonaya waa salaama, salaan wanaagsan ayuu ku salaamayey. haddaba dadkii reer madiine odayaashii inta badan diinta ayay raaceen oo shirkigii iyo gaalnimaday ka tageen, ilaa asaga iyo in yar maahane. nasiib wanaag wiilashii uu dhalay ayaa nebiga rumeeyey, hooyadoodna way rumaysay. weliba muscab ibni cumayr oo ahaa ninkii magaalada madiine loo soo diray ayay diinta si wanaagsan uga barteen. xaaladdu markay meesha garaysay ayay u tashadeen odayga sida sanamka looga celin lahaa. habeenada ka mida ayay u yimaadeen oo ay ku soo xadgudbeen. sanadkii ayay ka qaadeen, meel ayay ku tuureen. subaxii markuu soo kacay sida caadada u ahaan jirtay ayuu sanamkiisii u yimid si uu u salaamo, uu salaamta u bixiyo, uu ka dhigto ama uu barakaysto. sanadkii ayuu waayey.
waa qayliyey, si kasta ayuu wax u sameeyey, waa raadiyey, meel kasta ayuu ka raadiyey, waa waayey. markii dambe ayuu arkay asagoo la xooray oo meel markaa laysaga tuuray. waa soo qaaday, waa dhaqay sanadkii, meesha ayuu keenay haddana. markaasuu yidhi haddaan ogaan lahaa qofka saas ku yeelay waa kaa celin lahaa, ee iska sabar ee meeshaada joog ayuu yidhi. maalintii dambe ama habeenkii kale ku soo xadgudbeen wiilashii, sidii oo kale ayay yeeleen haddana. dhowr mar markay sidaa yeeleen ayaa maalintii ugu dambaysay seef ayuu soo qaaday, garabka ayuu u suuray. markaasuu yidhi haddii ani wax aadaba imaba iibtari kartide, haddaad nin khayr leh tahay oo mid khayr wata aad tahay, naftaada difaaco, aniga ilin kuuma jeedi, waxasaa markaa ku yeelaaya. cilmigii way u soo xadgudbeen. habeenkii kale haddana seeftii ay ka qaadeen. sanadkii intay soo qaadeen ayay dhintay ku xireen, qashin qubkay iskula tuureen. waa yimid si uu sanadkiisii u salaamo, waa waayey suu u raadinaayey oo meel kasta uu uga raadinaayey. ayaa markii dambe wuxuu arkay sanadkii oo dhintay lagu xiray oo qashin qubka markaa lagu riday. maalintaa ka gadaal ma soo qaadin, horay ayuu u tuuray. markaasuu yidhi haddaad ilaah ahaan lahayd, adi iyo dhintay qarni iyo kuwo isku xiran ma ahaan lahaydeen qashin qubka dhexdiisa. meesha ayuu ku qiray waxdaaniyada ilaahay, diinta allana uu ku raacay subxaana wa tacaala. weliba ninkaa wuxuu dhihi jiray marka la dhaho ilaahay aamin, horta sanadkeygan lasoo tashanaa, markaasuu aadi jiray. haddaba dadka mar allaala marka ay diinta alla ka durqaan, waxyaabo aysan xayawaanku ku kicin oo aysan samayn iyo wax ka liita ayay markaa sameeyaan. haddaba ibraahim calayhi asalaam sidaa ayuu ugu dadaalay. ayagana natiijadii iyo gebagabadii waxay ka dhigeen inay markaa gubaan si ay ilaahyaalkooda ugu gargaaraan. sidaa yeela ayay dhaheen, waxaa lagu ballamay in dab weyn la shido, dhowr maalmood qoryo loo soo aruuriyo. weliba waxaa la wariyey islaamaha xanuunsada iyo dadka ka jiran inay ku nadraan oo ay dhahaan canugeyga hadduu ii caafimaado, ibraahim dabka lagu gubaayo ayaan qoryo u soo guri lahaa. heerkaasaa la gaarsiiyey ibraahim calayhi salaam. waxaa loo gubaya waa kelimada tawxiidka. waxa dhibaatada loo gaarsiinayo waa dadkan diinta uu u sheegayey. intii aan ka soo sheekaynaynay ma maqlin meelo qof uu lacag uga qaatay ama uu ku caayey ama dhul iyo wadaninimo iyo guryo iyo waxyaabo uu kala hadlay. intaasoo dhan wuxuu kala hadlayay war laa ilaaha ila allah dhaha, war shirkigan iyo gaalnimadan iska dhaafa. arrimooyinkaa waaye sababta hadda dadkii lagu gubi lahaa ibraahim loo shidayo calayhi salaam. waa laysugu yimid oo dadkii ayaa si xoog ah markaa loo shiday. weliba ayagu waa awoodi waayeen inay u dhowaadaan manjaniif ama bahalka tumtaqaanaa la yidhaahda madfaca ayaa lagu riday ibraahim calayhi salaam oo saa loogu tuuray. in allaala inta uu meesha ku xirnaa ayaa malakul jibriil u yimid. wuxuu dhahay wax xaajo ah ama dan ah oo aad leedahay ama aad iga leedahay ma jirtaa? ibraahim wuxuu yidhi maya, adiga wax kaama lihi, amaa ilaahayna arrintayda ma mooga subxaana wa tacaala. ilaahay dartiis waaye waxa aan meesha ugu xiranahay oo dabkaa kulaylka badan oo la shiday laygu wado oo laygu ridaayo. jibriilow adigu waad mahadsan tahay, laakiin ilaahay asaga ima mooga subxaana wa tacaala, waa ii gargaari doonaa. ibraahim calayhi asalaam aad iyo aad ayuu ilaahay u beryey. ilaahayow adiga fi samaa'i waaxid, samada ayaad waaxid ku tahay buu yidhi, wa ana fi lardi waaxidun, anigana mid keligiis ah oo arlada kugu caabudayaan ahay. allow waad ii jeedaa. ibraahim dabkii ayaa lagu riday. dab alka markii lagu riday hadalladii uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil, sida nebiga tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. xasbuna allah wa nicma alwakiil ayuu dhahay nebiga mar allaala markii la yidhi ummaddii iyo gaaladii way isu soo bahaysataye ka cabsada. fazaadahum iimaan ayuu u siyaadiyey. wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil. ibraahim ayaa yidhi markii dabka lagu riday calayhi salaam, sidaa darteed xasbiya allah wa nicma alwakiil ayuu dhahay. kaafigay ilaahay waaye, asaga ayaa igu filan. in alla in la kala tala saartana oo wakiil laga dhigta asagaa u nicmo badan subxaana wa tacaala. nebi ibraahim markii dabkaa lagu riday, ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. waxaan ku dhahnay dabkii ayaan la hadalnay, wardabow waxaad noqotaa bardi iyo qabow, haddana mid salaam ah oo nabadgelyo ah noqo, ibraahim dushiisa u ahaw.
ibnu cabbaas wuxuu yidhi wasalaaman haddaan lagu dari lahayn ibraahiim qabow inuu u dhibaatoobo ayaa suurogeli lahayd laakiin ilaahay wuxuu yidhi yaa naaru kuunii bardan wasalaama dabow waxaad noqotaa qabow iyo nabadgelyo qabowgaaga qabow salaamo iyo mid badbaado wata ha ahaado ibraahiim dushiisa markaa u ahaaw sidaa ayuu yidhi oo ilaahay ayaa dabkii ka damiyey subxaana wa tacaala wax dhibaataa ma gaarsiin ileen dabka waxa uu wax ku gubaa waa daata alle iyo awood alle awooddii alla haddii meesha laga waayo wax uu gaarsiin karaa ma jiro dabkii ayuu la hadlay ilaahay oo yidhi qabow iyo badbaado iyo nabadgelyo u noqo ibraahiim dushiisa wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin waxay la dooneen ayaa la yidhi dhagar iyo keyd iyo makri annagana waxaan ka dhignay kuwo khasaaro badan oo khasaaray ayaan iika ka dhignay guushii iyo wanaaggiina iyo ciribtii wanaagsan waxaa helay ibraahiim calayhi assalaam ibraahiim ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala haddaba mar allaala markii ay gubeen waata ilaahay aayad kale uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala oo yidhi waxay dhaheen ubnow lahu bunyaanan dhismo u dhisa fa alquuhu fi ljaxiim ee dabka dhexdiisa ku rida fa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alasfaliin waxay la dooneen dhagar iyo keyd iyo makri inay gubaan oo ay dilaan oo ay baabi'iyaan oo tawxiidka nuurka u waday ay meesha ku joojiyaan ayay rabeen annagana kuwa hoosayn badan ayaan ka dhignay ayuu yidhi ila subxaana wa tacaala intaa ka gadaal wa qaala innii daahibun ilaa rabbii wuxuu yidhi ani waa iska baxaa intaa wixii ka dambeeya rabbigay xaggiisaan aadaa sayahdiini allana waa i hanuunin doonaa innii daahibun ilaa rabbii meel laysku gubaayo oo laa ilaaha ila allahba aan lagu dhihi karin oo qofkii ahlu tawxiida laga necab yahay aniga ma joogaayi waa iska baxaa ayuu dhahay ibraahiim innii daahibun ilaa rabbii rabbigay xaggiisaan iska aadaa ilaahayna waa i hanuunin doonaa subxaana wa tacaala dhulkaa lagu gubay oo dhibaatadaa lagu gaarsiiyey baabil ayuu ahaa wou ka soo baxay ibraahiim waxa uuna soo aaday shaam nebi ibraahim calayhi assalaam markaa wax awlaada uu leeyahay ma jirto waxa uu qabaa islaantiisa oo saara ah caaqiro ayay ahayd naag aan markaa dhalin way isi soo raaceen intaa wixii ka dambeeya oo dhibaatada iyo mashaakilkaa la soo gaarsiiyey wuxuu dhahay ibraahim ani waa iska baxaa ani meeshan waa ka tegaa meel aan ilaahay diintiisa laga ogolayn oo kelimada tawxiidka dadka aysan ku raacaynin ani waa ka tegaa rabbigay xaggiisaana aadaa iyo meeshii rabbigay i amro asagaana wanaag i gaarsiin doona cabaar ayay soo socdeen waxay soo mareen ayaa la yidhi magaalada masar waxaa haystay boqor daalim ah oo jabbaar ah oo mutakabir ah oo isla weyn qof walba oo gabar la socota haddii uu yidhaahdo ama ay tahay naagtiisa xumaan ayuu ku samayn jiray haddaba boqorkii waa loo soo sheegay oo waxaa la yidhi ibraahim ayaa dhulkaaga soo galay oo magaalada ku socda waxaana la socota naag axsan naas ah oo dadka aad iyo aad midda ugu fiican ah iisoo qabta oo ii keena ayuu yidhi mar allaala markuu sidaa yidhi ibraahim ayaa marka hore loo wacay oo la yidhi maxay kuu tahay ibraahim wuxuu yidhi walaashay waaye mar allaala markuu soo baxay ee la yidhi ii soo dir ayuu u yimid markaasuu dhahay faajirkii iyo daalimkii ayaan u tegey waxaan u sheegay inaad walaashay tahay ee hadalkayga habeeninin ayuu dhahay ibraahim waayo maanta adduunka kuma sugna dad ani io adi maahane dad mu'miniin ah mu'miniintana waa walaalo sidaa darteed daalimka aan u tegey walaashay waaye ayaan soo iri ee beenteyda ha i beeninin ayuu dhahay ibraahim calayhi assalaam islaantii waa la waday oo boqorkii ayaa loo geeyey mar allaala markuu arkay gabar qurux badan oo wanaagsan inay tahay wax kale maba su'aaline gacanta ayuu la taagtay ama gacanta ayuu la aaday asagoo raba ibraahim oo aabbihii tawxiidka ah xaaskiisoo cafiifad ahayd oo aad io aad u dhowrsan inuu xumaan iyo waxyaabo kale ku sameeyo gacanta ayuu la aaday gacanta markuu ula dhowaadayna gacantiisa waxay noqotay mid shalal ah ama adag oo sida dhagaxa oo kale ayay markaa u kagtay wuxuu yidhi war ilaahaaga ii tuug wax dhibaata oon ku gaarsiinayaa ma jirtee waa iska kaa dhaafaa ayuu yidhi ee ilaahaaga ii tuug ilaahay ayay u barisay gacantiisaa loo sii daayey kama sabrina mar labaad ayuu la aaday haddana
sidii markii hore si ka daran ayay noqotay, gacantii uga adkaatay, weliba dhibaato xoog u badan ayuu gaadhay. wuxuu yidhi war rabbigaa ii tuug, wax dhibaato oon ku gaarsiinayaa ma jiro, war maanta wixii ka dambaysa bes waay, waa iska kaa dhaafaa, gacantayda hadday sideeda iigu soo noqoto. rabbi ayay u tuugtoo gacantiisaa loo sii daayey oo markaas sideedii hore u noqotay. daalim faajir ahoo mutakabir iyo isla weyn waayee faajir ah, intaa kuma gaabsanin, haddana mar saddexaad ayuu gacanta la aaday. labadii mar siday noqotay si ka daran ayay haddana gacantii ka noqotay. markaa ka gadaal ayuu ballan weyn iyo miihaaq adag u qaaday inuu maanta wixii ka dambeeyo dhib kale uusan gaarsiin doonin, xumaan kale uusan ku samaynaynin, haddii markaa gacantiisa markaa ay u fiicnaato. allay u tuugtay, gacantiisii ayaa sidiisii u noqotay oo u wanaagsanaatay. raggii u soo geliyey ayuu u wacay, war insaan iyo bani aadam iima keenin ayuu yidhi, shaydaanad aad ii soo geliseene iiga bixiya, bannaanka u bixiya, ibraahiim u dira, haajarana siiya ayuu yidhi. gabar haajaro la yidhaahda siiya, khadaama ha u noqoto, ha u shaqaysa ayada, hadiye ahaan u siiya ayuu dhahay. hadiyadaa ayaa loo soo siiyey haajara. saaro ayaa soo wadatay, ibraahiim ayay u timid. ibraahiimna waxaa la wariyaa mar allaala markii ay ka soo tagtay naagta inuu rabbigiis hor istaagay, uu salaad u istaagay ilaa ay u timid. markaa ka gadaal ayuu salaadii faaruqay oo arrintii u weydiiyey. ayaduna waxay tiri ilaahay ayaa iga kaafiyey gaalka dhagarta iyo makriga uu markaa watay. haajarana markaa waa isoo siiyey qadaamo ahaan inay ii noqoto, sidaa ayay tiri saara. haddaba xaaladdu markay meeshaa maraysay, saan soo tilmaannay caaqiro iyo mid madhashaa ayay ahayd, owlaadna markaa ma lahayn. gabadhii saaro ahayd way fikirtay, waxayna ku fikirtay inay haajara u hadiyeysa ninkeeda ibraahiim oo ay u guuriso si uu markaa u guursado. waxayna tiri ibraahiimow, haajara waa tanaa ee ayada xaas ka dhigo, waxaa dhici karta inuu ilaahay owlaad nooga arsuqo subxaana wa tacaala. arrintaa ayaa suuragala ayay tiri, ninkeeda ayay naaku daraysaa. maca daalika ayay dhahday, arrintaasaa suuragale ibraahiimow guurso, middaa markaa la isoo siiyey. maca daalika haajara ayay u dhigtay oo ay u dhistay oo ay ninkeedii u guurisay. ibraahiimna waa mehersaday calayhi assalaam, isla markiina uur ayay u qaaday ayaa la yidhi. uurkaa ay qaaday iyo markay uurkaa u qaaday waa markii uu soo baxo meesha uu yimid oo gabadha haajara la soo siiyey. waata nebi ibraahiim uu dhahay, rabbi hablii min alsaalixiin, ilaahayow saalixiinta wax iiga hibeey, ilaahayow owlaad saalixiina baraka leh oo wanaagsane, owlaad saalixiina ii hibeey. ilahayna wuxuu yidhi fabasharnaahu bigulaamin xaliim, waxaan ugu bishaaraynay canug dulqaad badan, canug xaliin ahoo dul leh oo dulqaad leh ayaan ugu bishaaraynay ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waa ismaaciile. haddaba haajara uurkaa ayay qaaday. uurkaa markii ay qaaday nasiib wanaag waxaa dhacday saara oo markii hore dadaashay oo dadaal wanaagsan la timid oo ninkeedii ibraahiim ah u guurisay. islaantaa labaad ee haajara ah mar allaala markay uurkii qaaday in waxoogaa qalbigeedii wax galay oo qiiro iyo hanaaso iyo maseer galay. maca daalika ay arki weysay islaantii kale ee haajaro ahayd. islaantii kale ee haajaro ahayd ka gadaal waa laga soo waday. mar allaala markii laga soo waday ka gadaal ayay canugii ismaaciila dhashay. canugii markii la dhalay haddana aad iyo aad ayay uga sii masayrtay, heer uu awoodi waayey ibraahiim inuu meesha ku wada haayo. balse wuxuu sameeyey ismaaciil iyo hooyadiis haajaro ah ayuu soo waday. waxa uuna soo dejiyey xaramka oo markaa qofna aan joogin. xaramka oo markaa cidlo ahoo qofna aan joogin ayuu soo dejiyey, uu u soo waday. meesha ayuu keenay ibraahiim calayhi assalaam. weliba meesha dooxada ah ee kacbada macnaha dhinaceeda ah ayuu soo dejiyey. qof bani aadam ah oo meesha maalintaa deganaa ma jirin. jiraab iyo xoogaa yar oo timir ah ama weel yar oo biyo ku jira ayay wateen. meesha ayuu dhigay ibraahiim calayhi assalaam. ibraahiim cunugii iyo hooyadiis ayuu meesha dhigay. isla markii uu dhigayna waa ka soo dhaqaaqay, waana uga soo tegey. meesha ayuu uga soo tegey. wax yar oo biya ayay haysataa, waa canug yariis ahna waa wadataa. aabba inuu waday ayuu meesha dhigay. isla markiina waa ka soo jeestay.
markuu ka soo jeestay ka soo daba orday sida nebiga tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, gadaal ayay ka qaylisay ay tiri ibraahiimow yaad nagu dhaafaysaa, ibraahiimow meesha meel halis ah oo dhibaato leh oo bahgooya oo cidlo waaye yaad nooga tegaysaa ayay tiri. habbaar ayay hadalkaa ku soo celcelisay. ibraahiimna lama hadlin calayhi salaam, hortiisa ayuu u sii socday. wax badan ayay ka daba qaylisay ay tiri meeshaan halista ah oo dhibaatada badan yaad nooga tegaysaa, war yaad nagu halaynaysaa ibraahiimow. cabbaar markay sii waday uu la hadli la'yahay ayay tiri ma ilaahayaa ku amray subxaana wa tacaala, ilaahay maa ku amray inaad meeshaan nooga tagta? ibraahiim wuxuu dhahay nacam, haa ilaahay ay amray subxaana wa tacaala. gabar iimaan leh oo taacada alla taqaana oo waxyaabaha qadarka alla taqaanay ahayd. ma dhihin sida naagaha maanta jooga oo kale, ilaahaaga ma aqaana masaaribtayda isii, ilaahaaga ma aqaana waxaan cuni lahaa adaan kaa raba, ilaahaaga ma aqaana arrimooyinka noocaasay ku hadlaan. gabadhii haajaro ahayd waxay tiri mar allaala markuu yidhi ilaahay ayaa arrintaa i amray, ayaduna waxay tiri idan laa yudayicunaa, ilaahay mana dayacayo subxaana wa tacaala. haddii ilaahay ku amray uu ku yidhi meeshaan cidlada uga tag, ilaahay ma i dayacaayo? ilaahay mid i hilmaamaya ma aha, ilaahay i dayici maayo ayay tiri. waayo adiga aabbaha ah xataa wax aad tari karto iyo waxaad i siin karto biil iyo masaarifa ma jirto ilaa wixii ilaahay kuu soo dhiiba maahana subxaana wa tacaala. ilaahayba hadduu ku amray inaan meesha imaado oo meesha aad iiga tagto, ilaahay ma i dayacayo subxaana wa tacaala. ibraahiim waa iska soo baxay, ayadna canugeedii ayay u noqotay. cabbaar ayuu soo socday ilaa xujuun uu yimid. wuxuu qaabilay ayaa la yidhi beydka, gacmaha ayuu kor u taagay ibraahiim. markaasuu dhahay rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu asalaata fajcal afidatan min annaasi tahwii ilayhim warasuqhum min alhamaraati lacallahum yashkuruun. ducooyinka ayuu ku ducaystay, rabbanaa innii askantu, ilaahayow anigu waxaan dejiyey oo aan uga soo tegay min duriyatii ilmahayga biwaadin gayri dii zarcin, waadi iyo makaan oo abuur mid u saaxiiba aan ahayn, zarci iyo beer aan lahayn, oo cinda baytika almuxarami, beydkaaga xurmada leh agtiisa ah ayaan uga soo tegey. rabbanaa liyuqiimu asalaa, allow kuwa salaada ooga ka dhig inay salaada hagaajiyaan, qalbiga dadkana allow u yeel mid xaggooda u soo dumata oo u soo aada, himaartana allow ku arsuq lacallahum yashkuruuna, inay shukriyaan ayay mudan yihiin ayagana. rabbanaa innaka taclamu maa nukhfii wamaa nuclin, allow waxaad og tahay waxaan qarinayno iyo waxaan muujinayno. wamaa yakhfaa cala allaahi min shayin fi lardi walaa fi asamaa, ilaahay kama qarsoona shay samaawaadkii arlada ahaaday. alxamdu lilah, ilaahayaa mahad iskale ayuu yidhi, alladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila wa isxaaqa, ilaahii ii hibeeyey oo awood u yeeshay anoo duq i odaynimo gaaray inuu isiiyo ismaaciil iyo isxaaq. waayo ina rabbii la samiicu ducaa, rabbigay wuxuu ahaaday mid ducada maqle subxaana wa tacaala, mid ducada ajiiba ayuu ahaaday subxaana wa tacaala. sidaa darteed ibraahiim ducooyin badan ayuu ku ducaystay maalinta. owlahadeydaan meesha uga soo tegey ayuu yidhi, ilaahayow wadeeca ahaan ayaan kaaga dhigo adaan kugu dhaafay, ilaahayow wax wadeeca loo dhigtoo ammaano loo dhiibto adaa u qiimo iyo wanaag badan. maca daalika ibraahiim waa ka dhaqaaqay, haajarana waxay u noqotay canugeedii, biyihii ayay cabtay way ka dhammaadeen ilaa naasaheedii ay eber noqdeen, oo canugiina markii dambe uu galay inuu dhibaato iyo mashaakil gaaro. ayadii way oontay, canugii waa oomay, dhib iyo rafaad ayaa meeshii asiibay. maca daalika canugu wuxuu noqday mid sakaraad u dhowaaday oo kale, lugihiisa iyo jilb iyo jasadkiisa ayuu dhulka ku dhaqdhaqaajinaa. weliba wuxuu samaynaya galaagalasha sida xayawaanka oo u galaagasho oo kale, baahi darteed. hooyo way fiirisay canugii, waa u adkaysan weysay, waana fiirin weysay xaaladda uu ku taagan yahay. maca daalika way soo oroday ayadoo unays iyo wehel iyo waxyaabo kale raadinaysa. waxay u soo carartay ayaa la yidhi dhanka buurta safa. buurta safa ayay kortay, kor markay aaday ayay soo hoobatay ayaa la yidhi. mar allaala markii ay soo hoobatay badnigii ama waadigii hoos ay timid ayay cabbaar oroday. weliba orodkaa ay ordaysay inta ay diraceeda kor u qaadatay ayaa waxay oroday insaan majhuud ah
oo mashaqo iyo dhibaato asiibtay si uu cararo oo kale. cabaar ayay aaday, haddana waxay kortay buurta Marwa. kor ayay aado, kor ayay u sii fiirisay in intaa inay wehel iyo dad meesha jooga iyo waxyaaba meesha inay ka hesho. mar allaala markay hal shoob ama hal orod samaysaba canugay u timaadaa ay fiirisaa. canugu wuxuu yahay mid aan la dayi karin oo marba xaaladiisa marka kale ka sii daran oo kasii dhibaato badan. waa ka soo orodaa oo waxay timid haddana buurtii Safa. 7 mar ayay sidaa u kala oroday, ayadoo mar sidaa waadiga u taagan ayaa waxay maqashay ayaa la yidhi cod ayay maqashay. markay codkii maqashay ayay tiri sahbaa la yidhi ama sih. waxay ula jeedaa aamus, ayada ayaana iskula jeeda. cabaar waxay rabtay inay ismaqalsiiso, codkaa yeeray. mar labaad ayay maqashay, waxay tiri waa ku maqlay, haddii agtaada qaws iyo gargaar uu ahaaday noo gargaar ayay tiri oo gargaarna sii. xaaladaa iyo qofkaa la hadlayaba wuxuu ahaa malakul jibriil. waa loo yimid oo waxaa la yidhi ha cabsanin, wax dhibaato ah oo ku soo gaaraysaa ma jirto. baydkan iyo meeshaan bayd ayaa ku yaala oo alla leeyahay subxaana wa tacaala, waxaana dhisi doona wiilkan iyo aabbihii. meesha bi'riga iyo ceelka zamzamka uu ku yaala hadda ayaa lugaha uu uga dhuftay ama baalka waxa uga soo baxay biyaha zamzamka ah. isla markii biyihii ay aragtay way soo carartay Haajara. biyihii ayay meesheedii ku celcelisay ayaa la yidhi, ayadoo ka cabsanaysa biyaha inay ka fagtaan oo meel kale ay aadaan. biyihii xawd iyo dar ayay u samaysay. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay ha u naxariista ummu ismaaciil hooyadiis haddii ay ka tegi lahayd oo ay dhaafi lahayd oo biyaha ay dar iyo waxyaabo kale u samayn lahayn, zamzamku wuxuu noqon lahaa cayn iyo il iska socda oo adduunkoo dhan wada gaara. laakiin meeshay ku celcelisay oo meeshiisii ayuu ku sugnaaday hadda biyihii zamzamka ahaa. biyaheedii ayay isticmaashay, biyihii ayay cabtay, canugeedii wax ka siisatay. ilaan biyaha biyo barako iyo qiimo badan waaye. rasuulkuna wuxuu yidhi biyaha zamzamkaa wixii loo cabo ayaa laga helaa, ow kamaa qaal. arrintaa waxay tilmaamaysaa biyo qiimo badan oo barako leh oo wanaagsan inuu yahay biyaha. wixii loo cabaa laga helaa. haddii caafimaad loo cabo, cilmi inaad barato haddaad u cabto, iyo wax walba oo markaa loo niyeystaba. sidaa darteed biyaha habkaa iyo hanaanka ayuu ku yimid. gabadhii mar allaala markay biyihii heshay oo ay wanaag iyo qalbigeedii degay ayay xawdkii ag fadhiisataa la yidhi. xawdkii iyo meeshii darka ahaa ee biyaha ka soo baxayay ag fadhiisatay. sida caadadu ay tahay meelaha biyaha ay fadhiyaan waxaa lagu yaqaanaa shimbir caan ku ah biyaha oo meelaha biyaha ka dhow yahay ayuu ku duulaa shimbirka noocaas ah. dad safarley ah oo jidka sii maraya ayaa waxay arkeen caayifka ama shimbirka. waxay dhaheen wallaahi shimbirkaa biyo ayuu hayaa oo meeshaa wuxuu la duulaayo waxay tahay meel biyo u dhow ee waa inaan meesha tagnaa. waxay dirsadeen ayaa la yidhi rasuul ama rasuulayn, 1 nin ama 2 nin ayay dirsadeen. mar allaala markay meesha yimaadeen ayay arkeen islaantan oo meesha joogta oo biyaheeda ag fadhisa. dadkii safarleyda ahaa ayay adeeg u direen. meesha ayay yimaadeen, waxayna ka codsadeen islaanta waa ummu ismaaciile inay meesha la soo degaan. ummu ismaaciilna way ka ogolaatay. waxay tiri soo dega, laakiin biyaha anigaa maamuli doonee. biyaha anigaa maamulaya ayay tiri. haddaba meeshii ayay soo degeen oo qabiilkii reer Jurhama ayay ka dhasheen. qabiilkii ayay adeeg u direen. qabiilkii oo dhanna meesha ayay soo degeen. haddaba qisada waxay noo joogi doontaa haddii ilaahay yidhaahdo ummu ismaaciil oo biyaha heshay iyo dadka oo meesha soo degay. berita haddii ilaah yidhaahdo ayaan meesha kasii wadi doonaa. inta ka horaysana wa aquulu qawlii haada waastaqfir allahu lii walakum وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.